kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo halkani waa Somali Freedom aniguna waa Ciidulus Iimaan kusoo dhawaada fadhi kamida fadhiyada aan alaaba idinku soo gudbino taxanaha sheekooyinka iyo muuqaalada gaarka ah ee aanu idiin soo xulno mar walba waxaanu ka fikirnaa mowduuc gaar ah oo si gaar ah aanu isleenahay dadka daawashadiina ay gaari doonto way xiiso gelin doontaa ayaanu soo xulnaa haatan waxaanu soo qaadan doonaa oo muuqaalka iyaga aad ku daawan doontaan marka aad luqad cusub baranayso ka fogow inaad ku dhacdo 10 qalad caadiyan waa wax dhaca nolosha ay qayb ka tahay marka aad qaadayso safar aadan hore u tijaabinin way adag tahay in sida aad moodayso wax walba ay noqdaan laakiin si ka duwan iyo si aan ku talagelinba intuba waa la kulmi kartaa waxayse ka mid tahay duruusta nolosheed waxayse ka mid tahay duruusta nololeed ee hore loo sii qaato aadamiguna arintaasi dabcan waa uu ka wada siman yahay tobankaas ayaan halkan kusoo koobi doonaa haddii eebe uu raali ka noqdo saaxiibayaal haddii lagu yiraahdo xusuuso qaar ka mid ah qaladaadkaaga xilligii kuugu horeysay ee aad luqad cusub baranaysay maxaa kugu soo dhacaya durba inaadan garanaynin sida saxda ereyada loogu dhawaaqo qaladaadka naxwaha iyo qaar kale badanba nolosha ayay qayb ka tahay waana arrimo badan oo arday ay la kulmeen sida ka muuqata qaladaadka in lagu dhaca way badan tahay marka luqad cusub la baranayo inta badan waxaanay dadku wada garanaynin in qaladaadkaas aan loo aqoon inay yihiin kuwa khatar ah dhanka kale marka aan eegno dabcan waxaa jira qaladaad dhab ah oo dad badani ay galaan iyagoo aan fahamsanayn kuwaas oo ugu dambeyn keena in barashada luqadda lagu fashilmo tobankaas qodob waxaa ka mid ah inaad ka baqato ku hadalka luqadda qalad qaadasho la'aan ereyo cusub oo la iska barto wada qaldan oo la raaco doorasho wada kaliya oo waxbarasho dagaalka xoogan oo aad mar qura saarto dhageysiga oo kugu yar iyo in mar kaliya aan isbuuci dhigato iyo sidoo kale mid tobanaad oo inaad si sahlan isku dhibto waa tobankaas arrimaha aanu soo koobi doono waxaan ku bilaabaynaa inaad ka baqato ku hadalka luqadda marka ay dadku dabcan inta badan go'aansanayaan waxaa jirta caqabado badan oo ku hareereysan laakiin haddii ay si dhaba u qaataan mararka qaybtood ay suuragal tahay inay ka guuleystaan ama ay ka gudbaan caqabadahaas waxaa dhici karta in ku hadalka luqadda qalaad uu yahay mid adag waxaa dhici karta in ku hadalka luqad qalaad uu yahay mid adag oo dhib badan waa sida dad badan aaminsan yihiin laakiin xaaladdu sidaa way ka duwan tahay marka aad aragto qof ajnabi ah oo luqadda dalka ku hadlaya aad ayaad ugu farxaysaa sidaa darteed dadka moodaya marka ay luqad ajnabi ku hadlaan oo ay jijibiyaan in lagu maadsanayo fikir sax ah ma ahan markastoo aad wax isku daydo cid ku garab istaagta waayimaysid balse adigu inaad go-aan ka qaadato unbay ku xiran tahay noloshuna way soconaysaa halgankuna ma istaagayo arrinta kale xiisaha badan waxay noqonaysaa qalad qaadasho la'aan marka ay dadku luqad cusub baranayaan waxay aaminsan yihiin in qaladka yahay mid aan la aqbali karin oo bataatan bay tahay in laga fogaado isla markaana ay waajib tahay in wax walba loo sameeyo sidii qaladka looga dhowrsan lahaa waxay eegayaan oo qura qaladkii intii ay wax ka baran lahaayeen waxaa lagama maarmaan ah inaad qaladaadkaaga aqbasho oo aad wax ka barato sida caadiyanba ay tahay arrinta kale xiisaha badan waa ereyo cusub oo la iska barto bilaa ujeedo iyo bilaa qorsho inta badanna way dhacaan waana caqabad jirta oo dadku ay dabcan dareemaan marka aad erey cusub baranayso aan liis gooni ah xiriir la lahayn inaad xusuusataa way kugu adkaanaysaa marka dambana waxaa ka dhalanaya natiijooyin daciif ah halka dadaalkaagii uu u muuqanayo halbacaad lagu lisay waxaad samaysataa istiraatiijiyo cad marka aad ereyada xifdinayso liis gooni ah mar xifdi tusaale ahaan ereyada cunno karinta ku saabsan mar wada xifdi kuwa ay riboodka quseeya mar qura israaci tiro xayawaano ah mar qura wada baro waa habka iyo hanaanka qura ee aad ku xasilin karto marka aad ereyada dabcan baranayso inaad qayb gaar ah qorto xifdiso mowduuc kastana aad ku dul qorto adigoo aadan isbarbariyaac isku dhexyaac toona aan sameynaynin arrimaha kale waxay noqon karaan dabcan wada qaldan oo la raaco taasoo mararka qaybtood aad moodi karayso in jidkii saxnaa ee aad ku socotay ama aad ku socdaalaysay inay kaa wici karto ama ay kaa horjoogsan karto
taasna waa qalad kale oo horjoogsi ku sameynaya horusocodka noloshaada iyo xagga tacliinta higsiga aad ka lahayd. haddii wadada aad luqadda ku baranaysaa ay kaa xumaato, barashada guud ahaan ayay saameyn ku yeelanaysaa. marka waxaad nacaysaa luqadii oo inaad barataa aad mar kale ka fogaanaysaa. waa caqabad kale oo iyada qudheeda ay tahay bal in si gaara loo dareemo. waxaa habboon inaad degsato qorshe marka aad luqad cusub baranayso. mar walba xusuuso sababta aad dabcan u baranayso luqadan cusub. waxaad xusataa inaad naftaada u sameynayso credit aan lacag lagu qiimeyn, waana arrinka kuu keenaysa inaad horumar weyn ka samayso noloshaada mihnadeed. waana waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu ku dhiirado mararka qaybtood. arrinta kale ee aanu isleenahay iyaduna waa muhiim oo ay tahay in lagu daro doorashada wado kaliya oo waxbarasho. waa qodob kale oo caqabadiisu iyana ay jirto. dadka qaar wado kaliya ayay raacaan marka ay dadku luqad cusub baranayaan. marka aad naftaada hal wado oo kaliya aad barto, si sahlan ayaad uga caajisi kartaa. isku day intay suuragal tahay inaad wadooyinka kala badbadasho. tijaabi cashiro luqadda ah, buugaagta naxwaha ah, websaydyada luqadaha ah, buugaagta dabcan ee codka, aflaamta iyo muusiga iyo sidoo kale riwaayadahu. intuba door muhiima ayay ku leeyihiin barashada luqadda. markaas aad baranayso kaalin aan la qiyaasi karin bayna ku leeyihiin. waxaase muhiima inaad adiguba u qirto doorkaas inay leeyihiin si aad u ogaato waxtarkaas, adiguna aad u tijaabiso, dabadeedna ay kuu kaabaan, hankaagana ay aada u xoojiyaan. arrinta kale waa dagaalka xoogan oo aad mar qura saarto. waa arrin kale oo iyana laga digay sida muuqata. inaad gaarto go-aanka aad luqad cusub ku baranaysaa waa arrin soo jiidasho leh sida xaqiiqdu ay tahay. sidaa darteed bilowga hore waxaad isku dayaysaa inaad buugaag badan soo iibsato. maalintii dhowr saacadood aad dabcan ku dadaasho barashadeeda. sida ka muuqata isbuuca koobaad, marka uu dadaalkaagu meesha ugu sarreysa gaaro, ayaad arkaysaa inaad mar qura hoos u hoobanayso oo aad ka caajisayso intaad nus saac qura aad maalintii luqadda barato. sababtana waa xawaaraha xoogga leh ee aad ku bilowday. taas waa caqabad kale, waana arrimaha dib u dhaca kugu keenaya dadaalkaagii dhiiranaa iyo hankaagii sarreeyey iyo himiladaadii xoogganayd dhaawacaya, mar kalena dib kuu soo celinaya. waana caqabad ay tahay inta aysan ku gaarin ka hor inaad ka feejignaato. arrinta kale ee dabcan iyaduna ay tahay waxaa caadi ah inaad xamaasad weyn dareento xilliga aad luqad cusub bilaabayso, laakiin ha cantuugin inta aad calaajin karto. in ka badan xamaasadaada iyo dadaalkaaga marxalado kala duwan ka kala dhig oo si tartiib ah wax u bilow. dabcan waana arrin ay mar walba wanaagsan tahay inaad qaadato wadooyinka noocaas ah. waana wado dheer, laakiin guushu way la jirtaa oo kama foga. arrinta kale dhagaysiga oo kugu yar. isku day inaad luqadda ka dhagaysato in kugu filan. arrintani ku hadalka iyo dhawaaqa ereyada ayay ka hagaajinaysaa ama kaa caawinaysaa. waana xaqiiqi jirta, laakiin inaad fahanto ayay ku xiran tahay. inaad aqbashana waa dowr kale. inaad muhiimadaasi yaqiinsatana waa tallaab kale horusocodkaaga dabcan kaabaysa ama dhaqaajinaysa. sida ay dadku aaminsan yihiin weeyaan arrintaas. arrinta kale in mar kaliya aad isbuucii dhigato oo inta kale aad dabcan rumaysan tahay inaad dhammaantood mar qura wada qaadato, adiga oo waqtigaaga waxyaabo kale inaad ku qabato ay qorshahaagu yahay. inaad khamiis iyo jimco kaliya dhigato isbuuca, inta kasoo hartana aad ka seexato sax ma aha. waxaad u baahan tahay maalintii 10 daqiiqo oo qura oo aad luqadda kula falgasho si aadan deegaanka tacliinta iyo duruusta nololeed iyo kaabitaanka dadaalkaaga aadan uga dhex bixin. waana hawsha ay tahay in qofku uu marka hore jaangooyo halbeegyadaas muhiimka ah. arrinta ugu dambeysa waa qodobka 10aad oo ah inaad si sahlan isku dhiibto. isdhiibitaanku waa guuldarrada nolosha. waa dabcan qaladaadka la sameeyo. waana hanjabka iyo hiraalka oo kaa fogaada iyo qorshahaaga oo xumaada. ku talagalkuna adiga ma ahan. waa isdhiibitaanka bilaa natiijada ah, bilaa hadafka ah iyo bilaa xigmadda ah oo qaybtoo dad badani nolosha ka saaray, hankoodana dabcan meel cidlaa dhigay. inta badan marka ay qof wax ku adkaadaan waxay u badan tahay inuu ka haro. sidaa darteed isku diyaari duruuf kasta oo kusoo wajihi karta. naftaada u layli inaad xaalad walba la qabsato dabciyan iyo dhaqan ahaan iyo sidoo kale dad ahaanba. way ku kabaysaa, qofnimadaadana way xoojinaysaa, hankaadana
malaha caqabad kuma noqon doonto sida ay dadku tacliinta u dhunduleela talooyinka tacliinta bixiya ay rumaysan yihiin وهاك داود يال halkan ayaan kusoo koobaynaa ama aan kusoo gabagabaynaynaa dabcan mawduuceeni ahaa marka aad luqad cusub baranayso ka fogow dabcan 10 qodob oo dabcan qalad ah inaad ku dhacdo waad ku maasantihiin daawashada muuqaalkeena anigoo Cidrus Iimaan ayaa idin waramay Fuad Cabdisaaq Guri ayaa dhanka muuqaal duubista iga caawiyay dhamaanteedo isku duwan waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo nooli kulanti dambe oo xiiso leh